soo dhawaada qaar ciyaari aan gali doonaa xalay markaasi Arsenal waxay la ciyaartay Bayer Leverkusen kuna saacadtan ma 4-1 ayay ku dhifteen oo maxaa la leeyahay naadiga hadda Arsenal oo isku toosan tahay waxaan kaloo soo qaadan doonaa suuqa Leipzig iyo wararkii ugu dambeeyay Liverpool oo xiddiga dul qaaday naadiga Manchester United iyo waxaan kaloo ku soo qaadan doonaa xaaladii ugu dambeeyay guud ahaan suuqa Leipzig mar dhow Community Shield oo ciyaar doono Premier League oo soo laaban doono isbedelada markaasi dhici doono waxaan kormaraynaa horta naadiga Liverpool waxay ku dhow yihiin xidig Supermandi lagu magacaabo Real Sociedad u ciyaar qadka dhexe xidigaasna Manchester United ayaa labada isbuuc la soo dhaafay laga xirnay laakiin hadda Liverpool ayaa ku dhow wax walbana way isku afkarteen sida wararku sheegayaan naadiga iyo ciyaaryahankaba waxa kale ay afkartay teamka Real Sociedad iyo Liverpool waxaan leeyahay xaaladdu hadda way sii dhowdahay waana lagu dhawaaq doonaa isbuuca gudihiisa waxaa kaloo jirto in Arsenal xalay kulan saacadtan la ciyaartay kuna ciil baxday Bayer Leverkusen 4-1 ayay ku dhifteen taasoo ahayd ciyaar saaxiibtinimo uguna diyaar garoobeen xil ciyaareedka inkastoo hadda la soo xiriyo hadda wixii ka dambeeya ciyaar saaxiibtinimo kale aysan sii jiri doonin naadiyaduna ay markaasi aadi doonaan in isku diyaariyaan xil ciyaareedka cusub dhanka la daayno naadiga Manchester United waxa la dhaawacay ayaa hareeyay waxayna la ciyaar doontaa maalinta taariikh 10 la maraya Agosto waxay la ciyaar doontaa naadiga markaasi Man City kulanka Community Shield marka waxay u badan tahay in kulankaasi Manchester United dagaal loo laaban doono maadaama daafacyada aysan dhaawacyan ay kaga maqan yihiin haddii marka xaaladdu isbedel ay timaado waxay noqon doontaa leeyahay inay Maguire iyo rag kale ay ciyaarsiiyaan maadaama saxiix cusub ay la soo xideen uu dhaawac yahay wax hadda kale oo bedelayna aan la haynin marka xaaladdu way ku xuntaa leeyahay Manchester United dhaawacyada ayaana jahwareeriyay dhanka la hadaan eegno naadiga Arsenal waxa la leeyahay waxay ku adkaysanaysaa inay weeraryahan soo iibsan doonto maadaama inkastoo xalay Havertz iyo rag fara badan ay gool u dhaliyeen oo xitaa Sijango oo gool dhaliyay haddana waxa la leeyahay waxay u baahan tahay Arsenal xidig weeraryahan oo lagu isku haleyn karo isla markaana la caawin karo ninka leeyahay Jesus oo asagoo markaa galbiska marna fiican marna iska dansan marna dhaawac ku maqan marka waxay leeyihiin xidig waxa u baahanaa muhiim ah Alexander Isak iyo Victor Osimhen ay labaduba midkood doonaya Manchester United wali waxay ku adkaysanaysaa inay Ivan Toney soo qaadan doonto xidiga Brentford ugu ciyaaro weerarka ee xoog badan ay leeyihiin xidigaas ay doonayna walow xidigaas goolasho oo firdheen gool badan oo san dhalinayn haddana waxay leeyihiin waxaan marka oo ku bedeli doonaa booska Martial oo baneeyay inkastoo success dhahay booska Martial oo gali doona haddana xidiga ma weeraryahan asaga naftigiisa waxa leeyahay in ciyaaraha ayaa badan way u baahan doonaan marka isbedel inaan ku sameynaa ay doonaan dhanka weerarka ay leeyahay Chelsea oo kale soo waxay leedahay maadaama kulamada saxtan nagala wada badiyay waan u baahanaa in ciyaartoyda aan iska adkayno xagga daafaca inkastoo saddex game laga dhaliyay 10 gool waxay leeyihiin suuragal ma ahayn taasina waa culays weyn inkastoo la arkay ninkii Maresca ahaa oo James oo number 2 ka dheelsiinay garab hore number 7 dadku way la yaabeen shaxda oo ninkan ciyaaraya marka waxay leeyihiin Guardiola iska dhigin niyo teamka jahwareerinay meel fiican magu wad ama ciyaartoyda si fiican u saf xidiga fara badan ayaa jooga Chelsea oo markaas ciyaari karo waxaana dhigi karo Barcelona waxay sheegtay inaysan wax saxiix sameyn doonin ay ku qanacsan yihiin inta ay hadda haystaan xidig dambe oo markaas naadiga ku soo birayna ma jiraan waxayna ka baqayaan dhaqaale wanaag ninka lagu magacaabo Kylian Mbappe isaguna tababarka ay ku soo noqday Real Madrid xil ciyaareedkiisa cusub ay isku diyaarinayaan waayihiisa cusub Marangoska ay isku diyaarinayaan xidigaasi waxaana la arkay isagoo faraxsan oo teamka tababar la qaadanayo waxaan leeyahay xil ciyaareedkan Real Madrid haddana mar kale ay wacdare doonta haddaba Mbappe soo qaateen waxay u badan tahay haddana mar kale inay La Liga iyo Champions League haddana ku ceshan doonaan warka doona waxa ku soo garo Bayern waxay ku dhigtoonaysaa in Manchester United ay ka iibiso Matt Delight iyo Nusair Masraoui labadaas xidig oo ay doonayso inay ku wareejiso isla markaana waqti hore ay ku wareejiso Manchester United laakiin Manchester waxa haysataa leeyahay xagga dhaqaalaha dhaqaale wanaag ay ka baqaysaa waxayna doonaysaa inay Wan-Bissaka iyo rag kale iska iibiso inkastoo suuq sida Lindelof oo kale Maguire oo kale rag fara badan ay doonaysaa inay iibiso laakiin suuqii ay u laada xidigaasi maadaama West Ham la sheegay in Wan-Bissaka la wareegi doonto lagana yaabo in markaa ka baxdo 18 milyan oo lacag ah ay markaas sheegtay in kula wareegi doonto xidigaasi inkastoo xidigu uu ku adeegayo in haddii uu tagay halkaas in mushaarka hadda Manchester uu ka qaaday 150 kun oo gani ka badan la siiyo oo sheegtay in 150 kun oo gani la siin doono lacagta loo kordhin doono taasna culays ay ku noqotay in xidigu uu wareego dhanka ay West Ham waxaa kale jirto in hadda naadiyada sheeg maxaa la dhahaa Barcelona iyo hadda maxaa la dhahaa Real Madrid markaas si weyn isku diyaarinayaan xil ciyaareedka cusub oo ay leeyihiin markan waa in Barcelona ilaa sanadkan waa sanadkeeni tababar cusub loo keenay Real Madrid ilaa ciyaartoy fiican keensanay waa sanadkeeni dhanka Talyaaniga hadda eegna Inter Milan iyo naadiga Juventus ayaguna jawaabahooda isku marnaa xil ciyaareedkan waa in isbedel keenaa Thiago Motta ayaa loo magacaabay Juventus waxaana leeyahay xidiga Federico Chiesa inuu iska tago naadiga waana xidig muhiim oo qadka dhexan si fiican u ciyaaro xidigaas reer Italy waxa la leeyahay suuqa ayuu ku jiraa naadiga uu ku wareegi doono Adam Rabiot wuxuu raajicinayaa Manchester United u wareego maadaama uu xor yahay naadina oo san haysanin
Liverpool ay soo codsato una ka diiday wuxuu leeyahay Liverpool mushaaraadkayga ma bixin karto Manchester United ayaan u baahanahay oo markaas mushaarkayga iyo gol sidaas daraadeed Manchester inaan u wareego ayaan doonayaa bal waa arki doonaa haddii asagana u wareego Manchester United dhankaasi isbedelo badan ayaa suuqa weli ka shidan oo xidigo badan ayaa markaasi la kala doonaya laakiin labada usbuuc soo socoto waxaa leeyahay waa labada usbuuc ugu mashquulka badan ciyaartooy fara badan la wareegi doono waxa loo ciyaaraa kasoo kor halkaan kusoo gudbi doonaa barnaamij share gareey meel fogna gaarsiinta barnaamijka la kulmi doono fi amaan illah